asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada 5 daqiiqo fadlan hadday tahay markii ugu horreysay halka soo gaartay ha ilaaw inaad barta cas taabatid subscribe-ta si ay kuu soo gaaraan muuqaaladan halka soo dhigno marka ugu horreysa aan soo gelino saaxiibayaal mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay muxuu noqon doonaa filimka xiga filimkan habboon sida aynu la soconnaba filimka iminka socda ee xalqadii 8aad caawa soo gelayso waa filimka habboone waxa uu noqday filim hit ah ama filim aad iyo aad dadku uga heleen kaasi oo hadda ku socda inuu noqdo filimkii ugu saameynta badnaa ee Soomaalida show in ka badan 10 milyan oo qof ayaa goor horeba daawatay 17kii xalqadood ee u dambeeyay haddaba tani waxa ay dariiq u furtay amaba ay albaabka u furtay filimaanta Soomaalida sida aan hore u soo sheegaba waxaa jira filim la yiraahdo Naftii Hore kaasi oo actor ka yahay ninka la yiraahdo Jamaal sidoo kale tan ay filimkaasi ku jirto aktarada laadarada ah waa Ismahaan filimkaasi wuxuu u muuqdaa inuu yahay kan ku xiga ee kan soo labayn doona balse inkasta oo filimkaasi yahay mid aan xaqiiqo ahayn oo film fiction ama qiyaaliya balse filimkaani waxa uu u muuqdaa kan hawaa filimka habboon oo ku saleysan sheeko dhaba isla markaasina qaab qurna u dhacay waxay u muuqataa in filimka Naftii Hore ee loo maleynayo inuu ku xigo xiisaha uu kan leeyahay yeelan doonin sidaas darteed waxay u muuqataa in filimaanta kan ku xiga uu noqon doono filim si wacan looga soo baaraandegay isla markaasina aan noqon doonin filim qiyaaliya maadaama dadku ay aad u xiiseynayeen filimaanta sida dhabta u dhacay sida kan habboon ee imika hawada ku jira waxaa isaguna jira filim kaleeto la yiraahdo Xaaliyo kaasi oo sidoo kaleeto ay ku jirto aktarada habboon sidaas darteed waxa ay u badan tahay maadaama filimkan uu yahay mid ay ku jirto aktarada habboon isla markaasina ay tahay habboon gabadha filimka xiisaha ugu weyn u yeeraysa waxay u muuqataa in filimka Xaaliyo uu noqon doono kan xiga oo filimka habboon marka uu dhamaado oo u muuqato inuu hadda ku jiro xalqadiisii ugu dambeeyay halkan kala soco barnaamijyo ku saabsan filimka habboon iyo waliba musalsalada ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba mahadsanidin